sheekul faadil saa'ilkan kale waxa weeyaan waa gabar waxay leedahay aad iyo aad baan warwarsanahay oo dhib badan ayaan qabaa. waxay leedahay dhibka haysta waxa weeyaan waxa aan guursaday wiil yar oo aad iyo aad iga yar. waxay leedahay caruur badan ayaan u dhalay. waxay leedahay waxyaabo badan waan ugu sabri jiray oo marka uu mataqaanayay talo ka boodo waan iskaga sabraayo waan iska amsaa. laakiin hadda waxay leedahay baryahan dambe dhib buu igu hayaa haddaan wada hadalnaba waxa uu leeyahay anaa marka horeba waalnaa oo khaldanaa saa waxaan guursaday naag iga weyn oo maxaan ku idhaahdayay choice-kaygii baan iska xumeeyey. waxa uu igu yidhaahdaa naag kaa weyne neeftay kugu dishaa erayo aad iyo aad u fool xun oo dhagaxadal ah ayuu mar walba igu yidhaahdaa anigu waa adhibsadaa. wax alla waxaan sameeyana ma garanayo. awis bay leedahay saacadda in dib loo celin lahaa nin aniga iga weyn baaban guursan lahay. sheekh abudalxa maxaad igula talin lahayd bay leedahay arrintan sidee baan uga baxaa? falyatafadal mashkuuran wamaajuura. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قبل waxay tiri in ay aad iyo aad aan uga weynaa ayaa i guursaday caruur badanna waan u dhalay. xageed u socotaa talaba rabto marka waa maxay iska joog. mar dalka hore ninka aad uga weyneed weyni kadibna aad caruur badan u dhashay shaydaanka iska naaro caruurtaada korso bisinka qabso candhuufta ku macaanaato ninkana gabar yar ku dar oo aroosi waa inaad fahamto cilada meesha ku jirta. cilada meesha ku jirta waxa weeye wiilkan gabar yar buu rabaaye aqliga aad marka horeba wiilka yarka ku guursatay waxaad samaynaysaa gabar yar agtaada ooga dhiso waxaad dhahdaa toddobada markaad ka soo baxdo aniga isoo mar habeenka dambana agaasimo intaad si wanaagsan oodkac ooga dhargiso waxaad dhahdaa shaatigan sida wanaagsan u feeraysanna sii qaado insha allahu tacaala hal habeen kadib baan xabiibii ku sugayaa ii kaalay. taladaydu waa intaa caqliguna waa intaa waana sababka ay dhaqanka soomaalidu gabadhuna nin ka weyn u raadiso ninkuna uu u raadsado gabadh yar. xigmadan oo kale ku jirto oo reerku inuu burburo waqti aan loo baahnayn weeye waxa la diidayo ceebe iyo afxumo ay ka timaado. ninka waxaan dhihi lahaa adigoo laga yaabo inaadan waxba haysanin oo nin yar ahaa gabadha sida caruurteedii ku soo korsatay maxaa la yidhahda iikan in badan kuu soo sabirtay kaa weyneyd caqli badan oo laga yaabo talo badan oo ku dhaafi lahaydna kugu soo biirisay caruur badanna ilaahay kaa siiyey gabadha dhaqaale xaq badan bay weliba kugu leedahayoo yaraanta qofka aad isla soo marteen asagana uu kaa weynaa oo laga yaabo inuu asagu dhaqaalaha iyo wax badanba uu hayay aad isla soo marteen qofkaasi xaq badan buu kugu leeyahay ha ku abaalfurin oo hadalla xunxun ay dhibsato kaama aynan mudanina ha ku dhihin. ama haddii ay ayadu aad moodo inay dhashii iska daysay oo yacni dhashii ka yaraatay ama waktiba ay gaadhay ama ay caruurtaba intaa hadda ay dhashay ay leedahay ka badan ma dhalayo adiguna aamad u arkaysa hadda inaad 30 jir gaadhayo ama aad 30 gaadhay ama 40 gaadhood is leedahay haddaabad weynaatay oo reer dhaqan kartaa tartiib caqliyan oga dhaadhici war weynaatay oga dhaadhici taladan hadda ayada siiyey adigoon furin adigoon caayin adigoon aflagaadaynin inaad dhahdo gabadhay anigu haddii hadda un baan qaangaar run oo dhab ahe hadda un baan oday noqdaye haddii maxaa talaa reerkaan u baahnaye haddaad marka adigu aad tashan weyday oo weli ayada aad talo oga baahantay haddii kale intaad dhag ka siiso ayada inaad la tashato qasamaye haweenkaa iska dhaadhiciyaa ninka hadduu naa guursana waa inuu ogeysiiyaaye waa khuraafa nisaa'iya waxba kama jiraane oo sharci ma ahan ka wadaaye waxaad yeelaysaa reer samayso haddaynan gabadhan hadda awlaadna aad rabto awlaad kalena aadan ama aad doonayso ayadana awlaad kale hadda ayna diyaar u ahayn ayadana waxaan leeyahay markii ninku gabar yar guursado haboodin oo ha kicina shaydaanka iska naaro min weyn baa tahaye dhinac reerkaaga ka dhis. taladaasi waa talabiya kama dhibcaana isleehay ilaahay waxaan ka bari subxaana wa tacaala inuu qoysaska iyo usarka noo hagaajiyo. habeenkii dhaweed waxaana idhi su-aalaha laga jawaabayo ma aha mar walba inay adig ku farax geliso maya
su-aalo aan ku farax gelinin baa meesha, jawaabo aan ku farax gelinin baa imaan, qaab aadan jeclayn bay jawaabtu u bixi. macnaheedu ma aha marka sharcigu aniga qaabka aan u jeclahay waa inay jawaabtu u dhacdaa. dadka qaar baa noocaas ah. haweenku markay halkaasu kala marta waxay dhahdaan wadaad waa nino, wadaadkii kolba nimankii buu la saftay. waa luqada dumarka markan oo kale markay arrintuu jiq dhahdo oo la yidhahdo ninkani waa kane gabadheeda intuu iska guursado banaankaas ka maro, waxay dhahdaa ilan wadaadu waa nin. kollaba haddee dumarkii unbuu kolba raggii unbuu haddee la saftay. wakaa maxaa idin sheegaynay? laakiin waxa adi aakharana waxba ku tari mayso, adduunyadana kuma cayilaysid, dembi iyo hadal unbaad ka kororsan. waxaad yeelaysaa aakhare weeye meesha loo socdo. qof walba ku talagal aakhara saad ku gaari lahayd. wallahu aclam walcilmu cind allah.